soo dhawaada daawadayaal jumco wanaagsan qodobada xiisaha leed caawaad halkan ku daaban doontaan kuwooda ugu waaweyn waxa kamid ah maleeshiyaadka beesha Samaroon oo sheegeen in ay argudan doonaan kadib khasaarooyin lixaad leh oo ay gaarsiiyeen ciidamada geesiyaasha beesha Ciise dagaalkii dhowrkii maalmood ee u dambeeyay ka dhacay deegaanada Awdal iyo Salil xilli guuldarooyin isxiga dhabarka loo saariyay maleeshiyaadka Gadabursi iyo Samaroon oo isku dhinaca sidoo kale qodobada kale ee xiisaha leh caawa oo jumco sii bixayso Sabtina soo galaysa aad halkan ku daawan doontaan waxa kamid ah ciidamada beesha Ciise weyne ayaa markan helaya gurmadkii ugu weynaa iyo tan iyo dagaalkii ay kula jiraan maleeshiyaadka beesha Samaroon waan ku hayaa faahfaahinta xogtaasi sidoo kale qodobada kale ee xiisaha leh halkan caawa aad ku daawan doontaan waxa kamid ah dawladda Djibouti iyo maamulka Somaliland oo markan isfarsaari kara kadib markii maamulka Somaliland loo xaglinayo in ay gacan weyn ay siinayaan maleeshiyaadka beesha Samaroon maxaa ka jiro wararka sheegaya in diyaaradaha dagaal ee dalka Djibouti lagu arkaya deegaano kamid ah Awdal iyo Salil iyana ku haya faahfaahinta xogtaasi qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan oo daawadayaal aan idin qarinayaa halkan ku daawan doontaan soo dhawaada halkan aad iga daawanaysaan waa Macaash Media anigu soo waxaan ahay Abdiraxmaan Lisbon haddii ay taamar kugu horeysay fadlan kanalka rukumo oo subscribe dheh muuqaalkan aad daawanaysidna la garay siina share garay oo saaxiibadaada la wadaag mahasani daawade hagaag aynu ku bilaawno maleeshiyaadka beesha Samaroon oo sheegeen in ay argudan doonaan kadib guuldarooyin qaraar oo ay dhadhansiyeen ciidamada geesiyaasha beesha Ciise beesha Samaroon iyo waliba sidoo kale beelaha Gadabursi oo isku dhinac ah ayaa maalintii duulaano qaawan waxa ay ku qaadeen ciidamada geesiyaasha ee beesha Ciise oo ay doonayaan in dhawaan ay hirgeliyaan maamulka Guban State balse laakiin ciidamadan geesiyaasha ah ayaa sheekada ku fahmay maleeshiyadan iyagoona iska caabin xoogan ku sameeyay tan iyo markii ay isku dayeen in qaybo kamid ah maamulka Guban State ay la wareegeen ciidamada geesiyaasha beesha Ciise ayaa gebi ahaan deegaano wala tuulo wala magaalo gebi ahaanba iyaga ayaa hadda gacanta ku haya oo kaliya Boorama iyo Looyacade iyo meelo kamid ah oo kaliya ayaan haysanin ciidamada geesiyaasha beesha Ciise laakiin dhammaan inta kale iyaga ayaa gacanta ku haya ciidamada beesha Samaroon waxa ay iyagu markan ku goondinayaan inay aarsan doonaan oo ay markaasi guuldarooyin qaraarna ay dhaysiin karaan dhanka beesha Ciise maleeshiyaadka beesha Samaroon ayaana wacd ku maray in ay argudan doonaan iyagoona markaasi sheegay inay ka jawaabi doonaan dadaaladii iyo waliba sidoo kale qasaarihii ay soo gaaray tan iyo dagaalka ay kula jireen ciidamada geesiyaasha beesha Ciise waxa ay ku tilmaameen in ay yihiin kuwa doonaya in beesha Samaroon ay ciribtiraan balse laakiin sidaasi aysan u fududeen in beeshan weyn ay sidaasi loo markaasi tirtiro guuldarooyinkan qaraar ee haddana gaarsiiyeen waxaan diyaar u nahay har iyo haweenba inaan ka aarsano ciidamada geesiyaasha madaniga ee beesha Ciise balse laakiin sheekada taa waa ay ka duwan tahay oo raggii shalay jilbaha ku aasay ayaa wali taagan oo ciidamada geesiyaasha ee beesha Ciise iyagoona arinkan ku tilmaameen in ay maamulka Somaliland oo iyaga loo xaglinayo maamulka maarta beesha Samaroon markan waxa ay sheeganayaan in beesha Ciise iyo Somaliland ay isku jiraan oo aysan qaadanaynin wax nabad ah iyagoo aan aarsanin taasi waxay ku muujinaysaa heerka ay leeg tahay guuldaradan qaraar ay dhadhamiyeen iyagoona ay ku andacoonayaan in maamulka Somaliland uu gacan siinayay ciidamada madaniga ee beesha Ciise balse laakiin taa waa ay ka duwan tahay xaqiiqda maxaa yeelay ciidamada geesiyaasha beesha Ciise iyaga ayaaba weerar kala duwan ay ku qaadeen ciidamada maamulka Somaliland oo ku gardarooday in beesha Ciise yihiin kuwa qaladaadka wada balse laakiin maamulka Somaliland ayaa dhabta ogaaday in beelaha Samaroon aysan ahayn kuwa markaasi la dulmiyay ay yihiin kuwa dadka dulminayo balse waxa ay markaasi sheegeen ama markaasi maamulka Somaliland soo go'aamiyay in nabad la qaato oo markaa la kala dhaxdhigo balse laakiin ciidamada beesha Ciise waxa ay odayaashooda iyo waliba sidoo kale wax garadkooda ay sheegeen inay diyaar u yihiin in ay wax walba ay qaataan
balse laakiin ciidamada beesha Samaroon iyo kuwa Gadabursaba waxa ay diideenba in gabi ahaanba heshiis la kala dhaxdhigo iyaga iyo waliba sidoo kale beelweynta beesha Ciise balse taasi iyaga ayaa mar kale guuldarooyin qaraar ay ku dhadhami karaan haddii ay sidan wax ku sii socdaalaan dhanka kalena haddii aan fiiriyana ciidamada beesha Ciise ayaa markan helaya gurmudkii ugu badnaa tan iyo dagaalka ay kula jiraan maleeshiyaadka beelaha Gadabursi iyo Samaroon oo isku dhinaca ciidamada geesiyaasha beesha Ciise ayaa markan helaya hub aad u tiro badan kuwaas oo ay kula doonayaan in ay mar kale dhegta dhiiga uga daraan ciidamo tiro badan iyo hub markaasi saanadiisa aan tiradiisa si rasmi ah loo shaacin ayaa soo gaaray ciidamada madaniga ee beesha Ciise iyagoona ay kula dagaalami karaan bilaha soo aadan ciidamada beesha Samaroon iyo Gadabursi oo iyagu isku dayaya in ay ka argutaan balse laakiin ciidamada geesiyaasha beesha Ciise ayaa hore ugu nuuxnuuxsaday inay diyaar u yihiin inay difaacdaan deegaankooda iyo waliba sidoo kale dadkooda taas oo ay micnaheedu tahay inay diyaar u yihiin wax kasta oo kaga yimaada dhinaca maleeshiyaadka beesha Samaroon haddii aan fiirina dhanka kale beesha Ciise ayaa markaasi muujisay isku duubni xoogan iyadoona gurmad markaasi ballaaran oo ka imaanaya qaybaha kala duwan ee beesha wararka ayaa sheegaya in taageerada ciidan iyo waliba sidoo kale mid bulshaba ay si degdeg ah markaasi guuleysanayaan goobaha markaasi xiisaduhu marka ay ka jiraan sidoo kale waxaa la soo warinayaa in ciidamadan u yimaaday beesha Ciise aan tiradooda rasmiga lahaynin haddana waxa ay helayaan dhiig cusub oo ay kula dagaalami karaan maleeshiyaadka isku aruursanaya meelo kala duwan oo horey loogu dagaalamay tani waxa ay markaa u muuqataa mid markaa ay markaasi u cabsi gelinaysa beesha Samaroon iyo Gadabursi balse ciidamadan ayaana markaa hub markaasi aad u markaasi halis badan ay wataan ayaana soo gaaray furimaha hore dagaalka iyadoona gaadiid badan lagu arkayo furimaha hore soo gaalaya sidoo kale waxa ay soo taraya walaac markaasi waa markaasi ku saabsan in xaaladdu ay faraha markaasi ka sii baxday iyadoona ay xaaladdu ay sii naqanayso marba ka dambayso in ay guuldarooyin qarqaraar ay sii dhadhaminayaan ciidamada beesha Samaroon oo ay dagaal adag ay sheegeen inay kula jiraan ciidamada geesiyaasha ee beesha Ciise walow ay hadda xaaladdu ay u muuqato mid maamulka Somaliland soo kala dhaxgalaya haddana beesha Samaroon oo markaa meel soo joog laga kari laayahay ayaa u muuqata in mar kale jilbaa loo aaso haddii ay sidan wax ku sii socdaalaan xaaladdu ma cadda ilaa hadda warka rasmiga ah ee ciidamadan tiradooda iyo waliba sidoo kale dagaalka halkaasi ka socda waqtiga uu qaadan doono balse laakiin beesha Ciise waxa ay diyaar u yihiin shar iyo qeyrba waxa ay la yimaadaan beesha Samaroon Somaliland ayaa hadda garwadeen ay ka tahay xaaladan iyagoona markaasi laga rajeynayo in wax wanaagsan ay ka yimaadaan haddii ay beesha Samaroon ay diidana in beesha Ciise mar kale ay jilbaa u aasi karto maleeshiyaadkan isku aruursanaya deegaano iyo waliba sidoo kale tuulooyin kala duwan oo ka tirsan Awdal iyo Silal dhanka kalena haddii aan fiiriyana dowladda Djibouti waliba sidoo kale maamulka Somaliland oo ku dhow inay isfafara saaraan kadib markii diyaaradaha dagaal ee dowladda markaasi Djibouti lagu arkayay qayb ka mid ah gobolka Awdal iyo Silal taas oo cabsi badan ku abuurtay ciidamada maamulka Somaliland kuwaas oo maalmihii dambe ee ku sugnaa hoodka iyo waliba sidoo kale magaalooyin dhowr ah kuwaas oo ay sheegeen in ay kala dhaxdhaxaadinayaan beesha Ciise iyo waliba sidoo kale beelaha Samaroon Gadabursi ee isku yiraahdo balse laakiin xaaladda mid ka duwan ayaana lagu arkayaa Djibouti waxay hore u sheegtay haddii Somaliland ciidamadeedu lagu arko inay u xaglinayaan ama dagaalkan ay ka soo qayb galayaan in ay dhici karto in diyaaradaha dagaal ee dowladda Djibouti ayagana dagaalkan si toos ah u gali doona ciidamada beesha Ciise ayayna si dhab ah kor ugu waardeynaysaa diyaaradahan dagaalka maadaama xuduudo dhow ay wada leeyihiin Somaliland Djibouti iyo waliba sidoo kale Ethiopia balse laakiin saaxiibayaal xaaladdu beesha Samaroon uma wanaagsana maxaa yeelay guuldarooyin ayaa hore ula kulmeen markana Somaliland haddii ay dhankooda xigsato ay dhici karto in mar kale guuldarooyin qaraar halkaas lagu dhadhansiiyo diyaaradaha dagaalka ee dowladda Djibouti ay ka qayb ka noqdaan dagaalkan aan fiirino marka qodobkeena ugu dambeeyo sidoo kale waxa ay soo taraya walaac markaasi ku saabsan xaaladda ay markaasi ay furimaha waa markaasi xaaladaha
ay faraha ka baxaya iyadoona dowladda Jabuuti maamulka Somaliland ay u muuqdaan kuwa markaasi ku dhow in ay si toosa ugu hori markaasi ugu lug yeeshaan arinta taas oo sii kordhin karta khatarta dagaal ballaaran oo markaasi ka dhacaya gobolka. wararka ugu dambeeya waxa ay tilmaamayaan in dadaalada nabadda ay socdaan inkastoo ay xiisadu ay weli aad u kacsan tahay isla markaasna ay jiraan cabsi laga qabo in dagaal culus uu markaasi uu ka dhex qarxo Somaliland iyo waliba sidoo kale dowladda Jabuuti. daawadaal wixii warar soo kordhan waan la wadaagi doonaa guud ahaan halkaas ayaan jeclahay inaan ku soo gabagabeeyo. haddii aad halkan nala soo gaarto xataa qof qalbi wanaagsan waxaan sinahay isla kaaga codsanaya inaad kanalkan soo follow garaysid muuqaalka la garay oo share garay oo saaxiibada la wadaag waa ku mahadsantiin daawashada muuqaalkan mahadsanidin.